قلياهي تهريبتيو كتاميا ديبتي تعبكي دادكوديو تودي لوميو أدنى الدواء وحنا السلام يا أدقي أنت مغلي سبا صلاة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. أبوان طبعا واحد ترسي سوغان ترى بدن أو حليك لقدسن يوم مرحلة كقدسن أتك ترسي بردويتو وحرمنا بدن كبلنا ورسيين كوبن واحد ترسي مانسو أما قبل كوسابسن تهريبته أتك ترسي حفلة الوقفة مقالة مينيابلس كارهان حسب كل مي وقف صدي بل maxaa ku kalifay inaad tirisid maansadaas ujeedadeedu dulciisa maxay ahayd runtii Siciidow suugaantu waa su'aal wanaagsan marka ugu horeysa suugaantuna waxa weeyaan markasta qofka dad suugaanyahanka ah anigu horta gabaya ma sheeganayo oo ma ihi caana laakiin hadana fikirka ama dareenka aan suugaanta ka qaba waxa weeye hindisaha ama waxyaalaha dadka ku jira ayaa qofku uurkiisu maadaama uu talent u leeyahay inuu noqdo qof muhindisa oo ama hal abuura waxa haga markasta dareenkiisa marka waxaan arkay dhibaato badan oo anigu aan faqran oo aqaano sidaan horeba u tilmaamay oo ku soo kordhay dadkii la oran jiray dadkii ummadii Soomaaliyeed waqti 30 sanadood gudahooda taas oo keentay in urdankii dalka ama dhalinyaradii ama daayartii ay badaha ku madheen ku dhibaatoodeen hooyooyinkii iyo waalidiintiina warwar iyo ay ku jiraan marka runtii sanadkii ina dhaafay dabayaaqadiisii waqti aan aad iyo aad uga murugooday markaan arkay kuwa saxara iyo kuwa doonyaha badda ku dhintay ayaan dareenkayga ku cabiray gabay tixgabaya taas ayaan habeenkii dhawaato soo bandhigay sida aad ka dhawaajisay xafladda aan ka tiriyay kale YouTube-ka ku jirta oo hindisaheeda waxa igu keenay un dareen dadkaas dhibaatada aafada qaranka oo waliba aan aad iyo aad u soo dhaweynayo in laga hawlgalo wacyigelin badan la sameeyo murti iyo heesa laga sameeyo dadka aafada qaranka waayahay bal video laba ma nooga taaban karaysaa inteenan waraysigeena inaan hore ugu sii soconin oo inuu su'aalaha kale aan ku sii weydiinin waan soo qaadan karaa kelmada kamida gabayga saadaal gurxan baa la markasta YouTube-ku isagu ku jira oo uma baahna tafaasiil kale laakiin kelmadaha aan aad iyo aad uga soo qaato waxa la yiraahdaa saadaal gurxan baa la saadaasha gabay maalintan sananiye qaato ama aan silsiladeeda gala seeray oo dhigay sunnihiisa maalmaha wax jira lagu sifeeyay salka aan u dhigo oo murtida siinka ka higaadso sahwi lagu marido qoom ilaa ay saxa ka leexdaan sakatiga nafluhu waa markuu malagu sayraayo sababaha ilaahayna waa suurageliyana sakaraadka geeridu ka daran suurka qaylada ee noloshana saqaafkeedii hore 7 hadaad raacdo sinsinta iyo markii subaga iyo senyel la joogay sidka dhalay markii geela iyo saca la maalayay sangaga daweynihii markuu sabada noo joogay dhalin wada siyaaxda markay sabarka boodaysay sinta bidix hablihii laafihii iyo sabar garaacay sawirkiyo markaynaan aqoon saacadkiyo beenta salf sifihii dhabta ahaa markii noloshu sees joogtay salka noloshu saas u ah سبنوراتكي runtii gabayga wuxuu tilmaamayaa qaybaha hore dhaqankii iyo noloshii hore ayuu ka hadlayaa laakiin waxa jira qaybta taabanaya tahriibka iyo dhibaatada iyo dhibka ku keenaysa dadka tahriibaya iyo dadka ehelkoodaba aad dadka gabaygaas waxa gabay aad u qiiro badan oo markii aad ka tirnaysay meesha dadka aad maartay ugu qiroodeen waaykaas waxa kelmadaha iyaguna tahriibta taabanaya ama arinta u beeraya waxa weeyaan dhalintiisa tahriib bay badaha sibiq dhaqaaqeen Suudaan tan dhow bay xiriir uga samaysteen silig bay ku meershan habli Soomaalian jiray saxaraha barbay kaga tageen siiga boor badan saxariirka Liibiya ka helo waa la soconaa sidii arisa koobay oo markaa subax la qiimeeyay ama seelad xoolaha la tubay sixirna loo yeelay seelada markay jiifiyaan baa saantu gubataay soodonkii ka soo hara xabsiga yaa sadaal gala iyagoo sibraar badaxa wadan saadkii gurigooda safsaf bay ku saaraan qabaal soona loo dhigay sandulay ku fuulaan iyagoo soo majeesta ah saxan ka wareegaysta baa lagu saqaafaaye iyagoo sagaal qaday marbuu dib ula seedmaaye marna seelad Yurub uu galaas arax weetaa markay tagaan meesha muxuu ahaa Talyaaniga iyo tagaan meelahaas oo marka lafteedana aanay halka faa'iido ka helin ay iska xireen ku xireysan yihiin sharci aan la siin qaybta dambe waxa bay sheegaysaa in markay tagaan sawirkii maskaxdooda ku jiray Yurub
inay mid ka duwan la kulmaan halka ay dhibaato oo silic ka helo oo dhibaato ay ugu tagaan mid 10 sano ama 15 sano waqtigiisii ku qaatay mid uu saaciday oo waqtigu saaciday oo meel kale helayo sharci helay waa jira laakiin majority inta badan wixii ay hindisayeen kama helaan dadka maanta meesha ku dhintay waa dad aad iyo aad u tiro badan ma kula tahay in wacyigelin badan way jirtaa oo tan adigu aad samaysay qaar badan oo kale oo idaacadaha ay ka sameeyeen TV-da ay sameeyaan hay'adaha caalamiga sameeyaan masladan waxbaas dhimay wali dadkii socodkoodii mise waa sidii sida aan u arkaa anigu ismay dhimin waxaan sanadkiina dhaafay dabayaaqadiisii joogay magaalada Addis Ababa oo aan sadcaal ugu baxay halka waqti aan socdaal badan sameynayay waxaan arkay dareenka hadduu si laba laabmaysan anigu arko wacyigelin badan baa la sameeyay laakiin wali sidii loogu talagalay ma aha waxaan arkay ilmuhu wuxuu joogay markii hore in uu lacag yar helo ama wax dhaco oo ku tago laakiin imika qaabkan magafaha la yiraahdo aan gabay dambe ka sameeyay ayaa qaab delivery ah oo waxa weeyaan isagoo gurigoodii joogo iskuulkii aad saaka u dirtay ayaa qof looga diray Suudaan baa Hargeysa Burco Laascaanood garoowe meel kasta uu ugu tagay ama boosaaso war ma tagaysaa ma tahriibis aha lacag ma haysto oranay ana ku haya saas lagu soo delivery garanay caruurtii macnaha warinta arintaas waa nabaad gur hadday ka sii dartay arintaas hadhow lacagta qofkaas tahriibinaya hagu ka helaya ilmihii aan waxba haysan ba lacagta waxa uu ka helayaa magafahaasi wuxuu joogaa sida aan qiyaasta ku hayo Suudaan iyo Liibiya dhexdooda ilmaha ilaa iyo inta ama xamar laga keenayo ama boosaas ama Soomaaliland laga keenayo lacagta isaga qadimaya caruurta la soo delivery geeyay marka loo keeno ee halka la soo taago iyo qoobka ka xidhaya sida aad in badan aragteen waa la garaacaya waalidkii baa la wacaya waxa la leeyahay ilmahaasaan haynaa waxa la ii sheegay kelmadaha aan aad iyo aad ula yaabay ama ugu qiirooday ilmaha marka hore waxa la oranaya hooyo ma leedahay hadii hooyo leeyahay markii waa la soo qaadaya haduu aabba leeyahay badana laguma degdego halka waxa ka soo baxday in hooyadu u naxdin badan tahay oo ay u ilmeynayso markiiba lacagta magafa u haysto ay markiiba ama gurigeedii ha iibso ama daarad ha iibso ay markiiba soo shubayso waxa la ii sheegay isagana qiso kale oo ay nin culimo aan ka maqlay oo nin inankiisii leeyay inankaaga baanu haynaa saan u galaa ninku markaa sida la sheegay dameer loo ahaa nin waxba haysan buu ahaa oo dameer ku xamaasho biyaha ku qaada wuxuu ku yiri war qala oo wixii kala baxsan marka kala baxdaan ii soo celiya baaqi aniga ii soo dira runtii waxaan maqlay ninkaas uu badbaadiyay oo way sii daayeen naxdin aawadeed iyaga magafa laftiisa ayaa ka yaabay marka su'aashaadii oo ahayd ma la gaaray wacyigelintii maya hadda ay sii laba laabantisaan oo arko sababta ugu badan waxa lagu sheegaa inay tahay shaqo la'aan iyo baahi kale saad sheegtay dad baa tahriib ku qaada dadka muxawil oo xagga ka qaata lacagta intee lugta ka xiraan ilaa dadkooda soo bixiya laakiin haddana waxaa kaloo la sheegaa in dadka dhoofiya badankooda ay yihiin dad lacag badan ehelkooda u soo diraan oo ayagu ay ku dhiirigeliyaan inay tahriib galaan kuwa ayaga war makaysaa runtii way jirtaa oo waa laba nasiib darro mid way jirtaa dadka markii hore waxa dhaqaaqi jiray qofka isagu shilinka haystaba ninkaan waxba haysan wuxuu oran jiray de maxaan ku tagaa laakiin oo dadka meheradaha haysta aad shaqada ku ogtay u tuhmayso ayaaba tagi jiray intii waxooda kaash gareystaan dhaqaaqi jiray nasiibkoodana qaadi jiray ama ha dhintaan ama ha ku badbaadaan laakiin imika waxa weeyaan way isbedeshay intii arrintan ay soo baxday dib bay u cusboonaatay arrinta cilmihii laga keenayo isagoo iskuulka qabtay leeyma tagaysa lacagtii anaga haynee waa mid aan mid lacag haysta iyo mid aan haysan midna badbaadinayn waa xaaluf waa nabaad guur weey marka taasa imika si nasiib daran dowladda Soomaaliland waxaad moodaa inay dadaal badan oo maamulada kale jiraan ay sameeyeen oo xuduudda Itoobiya Soomaaliland marka ay marayaan in la soo celiyo lagu leeshiyo Itoobiyaanka in nayada noocaas ay wata dib la soo celiyo taa ka horreeyada maxay faa'iido dhashay arrintaasi iyadu way jirtaa dadaal badan oo loogu jiro wacyigelin badan oo loogu jiro laakiin arrintaasi marka wax kasta waxa la eegaa midhaha ka soo baxa ma kafeeyeen oo arrintii ma xallileen dhibaatadii taagneed mise ma xallilin arrintaasi waa mid aan wali lagu guuleysan marka la soo ururiyo haday dawlad tahay iyo haday culimo tahay haday cid kasta tahay arrinta laguma guuleysan qaabkii ay dawladdu dadaalada ka gashay wali laguma guuleysan arrintaas waan gartay hadaynu arrinka tahriibka kale kaga tagno dalku wuxuu marayaa marxalad siyaasadeed oo kacsan ama duufaan siyaasadeed baa jira meesha oo lagu
talagalayo ama diyaargarow loogu jiro doorashada soo socotay madaxweynenimada inkasta oo hadda qorshaha ama sida la sheegayba ay dib ugu yara dhacay doorashada muddo dib u dhacday maxaad kala socotaa ololaha ay ku jiraan xisbiyadu halkay marayaan maanta dalkii runtii Soomaaliland waxa weeyaan doorashooyin badan oo hore u soo qabsoomay imikana waxaa jira qaar fooda inagu soo haya walow ay gudida commissionku hawsha imika gacanta ku haysa ay soo iclaamiyeen iyagoo aan mudaynin haddana hawsha iyaga u taala waqtiga ay ugu qabyo beelayso ay soo iclaamiyeen oo soo sheegeen oo sida la ii sheegay ay ilaa iyo November ku egtay muddo 9 bilooda haddana waxaa jirta dadaalkii loogu jiray in doorasho wadankan ka qabsoonto maadaama Soomaaliland ay ku caanamashay in aan xabad la isku muquunin wax kale la af la isku muquunin codka muwaadinka lagu kala haro taas waxa weeyaan waa hawl soo socota laakiin runtii waxaan ka xumahay waxoogaa dib u dhac ah ee imika inoo muuqda ayaa ka xumahay laakiin waxa weeyaan waa arin diyaar loo yahay laakiin xisbiyada mucaaradka waxay leeyihiin doorashadii xilligeedii kuma dhacayso guddiga doorashaduna waxa ay sheegeen in ayagu ay ka hadli karaan xilliga la joogo diiwaangelintii iyagoo lagu magacaabo guddida doorashada hawshooda doorashada tahay taas aduu ma aragtaa in sida ay shakiga ay qabaan ay ah inay doorasho dib u dhacayso oo guddida lafteedu ay qayb ka noqon tahay dib u dhaca doorashada uma arkaa fikirka waxaan u arkaa horta guddida doorashadu toddobada xubnood ee la magacaabay inay weli imika inaga imika iyaga eedayno anigu uma arka xal wixii dib u dhac ah ee yimi hadday dawlad tahay hadday golayaasha baarlamaanka tahay cid kasta oo waxaan golayaasha sharci dejinta oo dhan ee wadanka dib u dhaca lug bay ku leedahay cid waliba ninna yuu odhanin anigu kuma jiro gabay gaariya lahaa waxa ku jirtay nin daweel la leeyahay dambi uu badh leeyahay xalka doon la leeyahay muhiimaddu waxa weeye war dawladda dib u dhac waa ku jira oo xusbiyada waa ku jira waayo xusbiyada golayaasha sharci dejinta sidaynu ognahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha baarlamaanka waxyaalaha ugu badan dib u dhaca markaad sida la isu eedeynaya aad dhigaysato qayb bay ka yihiin golaha baarlamaanka muxuu isagu dib u dhac ku keenay sharci baa loo keenay sharci doorashooyinka wuu baasiyay haddana wuxuu doorashada la qabtay muxuu eeday ku leeyahay isagu runtii wuxuu ku leeyahay horta marka u horeysa nimankan la yiraahdo golahan aynu dooranay baarlamaanka 2005kii oo Cabdiraxmaan gudoomiyaha ka yahay marka u horeysa anigu sidaan aaminsanay fikirkayga aanan cidna la qabanayn xisbuna la qabanayn 82 xubnood mid ka midna kama diyaar ah in wadankan doorasho ka dhacdo sababtuna waxa weeye dadkani waxay ku fadhiyaan 5 sano inagu dooranay 5 sano oo fowqal qaanuuna ayay ku fadhiyaan waa dad yaana waxa weeye markaad u fiirsato hadii walaha wakiilada hadii aad u fiirsato ma dhacayso 5 qof ama 10 qof ma aaminsan inay dib u soo noqonayaan hadii doorasho wadankan xalaal ay ka dhacdo waxa weeye nin kasta gobolku ka yimid dib ugu noqon waxna uu qaban maadaama ay aynka tahay ma aaminsana inay doorasho dhacdo waayo waa nin meheradaadii soo xidh la leeyahay inuu doorasho qabto ama u fududaado ama waqtigeeda soo dhaweeyo arinta ma aaminsani marka waxa weeye 82 xubnood ma kala reebayo way ku wada fadhiyaan arinta ku jira bad leedahay waxa kaloo iyada dawladda lafteeda ay ku doodaysaa in gudoomiye cirro gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaana ah gudoomiyaha golaha wakiilada ay ahayd 6 bilood ka hor inuu kursiga iska dhiibo gudoomiyenimada si madaxweynimada ugu dartamo taas sadwartadu arinta waxaan u arkaa muhiimaddu waxa weeyaan wadankan sharci baynu sameynay dastuuriya dastuurkaas waxa weeyaan sidaan anigu u arko ama aan u akhriyay ma dhamaystiro waa qabyo dadka kaliya ee qabyo tiri lahaa loogu talagalay waxa weeyaan Soomaaliland golayaasha sharci dejinta koow way ka yihiin golaha baarlamaanku maadaama ay ka yihiin 10 sano wax kastaba ha qabtaane sharcigan inay qabyo tiraan bay horta waajib ahayd waxa in badan soo noqnoqoto oo la isku qaban jiray waqtigii daahiriyaale qodobka la yahay qodobka 83 doorashooyin ka sheesheyn jiray markasta nin waliba dhinaca uu jecel yahay buu jiidaya markaad u sii fiirsato qabyo ku jirta aawadeed firqadihii qodobka ayaa keenaysa in la kala jiito ala kulli xaal 6 bilood buu joogayaa 6 bilood ka hor buu ka guuraa marka la isku soo ururiyo sharciga qabya sharciguna cidda qabyadaysa ay u taalay waa golayaasha sharci dejinta marka qofkii wax allaali wax lagula gelin baninba aayad buu dhinac ka jiidanaya ama firqad
waxaad leedahay waa lagu jira hawsha leedahay iyada marka timaado doodaha ama wararka saxaafadda la soo marinayo waxa kamida dhaliilo ah shakhsiyan ah iyo marka qaar ay gaadhay aflagaadiyay taas oo arta siyaasadda oo laba dhinac ba ka imanaysa marka qaar siyaasadda Soomaaliland dan miyay u tahay maxay admanaysa ma hadallada saxaafadda la soo marinayo ama saddexda xusbi ahaato ama xusbiyada mucaaradka ba gaar ah ugu si hadal kululaadeen ila ma aha arintaas inay xal tahay waa arin markasta damage inagu aho arintaasi aanan ma garanaysaa soo dhaweenin waxa jira hadallo baa jira haday adiga ka soo baxaan shakhsiga aad u jawaabaysay ama wasiirka aad u jawaabaysay aan u lahayn yacnaha ka weyn dambiga ay leeyihiin uu ka weyn tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa gudoomiyaha Muusabixi sanadkii dhawaa waxaan joogay wadankii xoogaa waxa dhacay anigu sadaal baan u ahaa Ethiopia waxa dhacay xoogaa walalaasa ka dhacay xoogaa kulmiga dhexdiisa kelmad uu yiri alaankan waxaan ku fikiraa yaa samayn kara arintan waa in wuxuu kelmadaasi ahayd waran cadda hadlay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ka hadlay arrimo ka dhacay wasiirkii amniga wasiir ku-xigeenkii amniga maalmaha ul noocaas jirtay ayuu ka hadlay isagoo Muuse u jawaabaya gudoomiyaha xusbiga kulmiga isagoo u jawaabaya wuxuu yiri nimanka Djibouti iyo waxaan ka sameeyay hawlahan Hargeysa kula joogan runtii arinta markaad u fiirto waa arin naxdin leh muddo 2 bilood ku dhow ayaa xuduudka Ethiopia iyo kii Djibouti labaduba ay xidhnaayeen marka ay ninkan Muuse waa mujaahid wadankan mustaqbal buu ka rabaa markuu isagoo kale kelmadahan isticmaalayo te waxa weeye waa arin naxdin leh oo lala yaabo keeni kartana dhaawac siyaasadeed oo wadanka oo dhan saameeya sida ay imika ay labada wadan bay inooga xidhan xuduudda kuwa kala aan iyagana yaan Muuse oo qura durin waxa imika la isla dhaxmaraya in badan ay axsaabta kale ama gudoomiyashoodu ku hadlayaan hadii 26 Juun la gaaro in wadanka aan dawlad jirin ee dawlad la wada dhisto arintaas waa nasiib daro aanu saan u arko ma dhacda adduunyada marka dawlad la sameeyo doorashada ay dib u dhacdo kale dawladda lafteedii baa loo kordhiyaa oo maartay xilli loogu dara laakiin miya dhacda in mucaaradkan lagu soo daro runtii taas anigu maan maqal waxa weeyaan wadankan sharciga ka jira sifa kasta ha loo maro doorashadu maadaama ay xilligeedii daba marto sharcigeena ama dastuurka waxa ku qoran madaxweynaha waxa soo bedeli kara madaxweyne sharci lagu soo doortay golaha baarlamaanka waxa bedeli karta baarlamaan sharci lagu doortay inagu raadka aynu raacayna sharciga ama qabiyaha ahaado ama uu ahaan raadka aynu raacayna waa ka ama aynu ku soo caanamaalay muddada 23 sano marka waxa weeyaan marka la leeyahay mid aan dhisano de waa dumin waa horta tan hore haduntu waxaan taa ka farayaa aan xusaatu mucaarad ka farayaa maadaama aad kursigan ku soo socotaan ninka Ilaahay u qoraana uu iman doono insha Allah de kursigan hadaad dumiso meel aad ku soo socoto aad imanaysaa aadna ma jirto laakiin waa inaad horta safe garaysaa kan kuna fikirtaa wadadii aad kula wareegi lahayd way qodobkan rabaa inaan taageero wareegno bariyahan waxaad arkaysay dad badan oo xisbiyada kala biiraya oo la xagaan ku biiray taasoo iska caadiya xilliga doorashadu ay soo dhowdahay tahay wax saas iska dhacda markasta maalin dhowto ama shalayto qiyaastii la taliyay madaxweynaha beelaha la hayb sooco ayaa istiqaaladiisii dhiibtay maalin kadibna waxaa la arkay isaga iyo boqor beesh ka tirsan oo ku biiray xisbiga wadani marka kelmadda ah beelaha la hayb sooco ma waxa bilaabay madaxweyne Silaayo mise wax soo jireenaba bay ahayd bal arrinkeeda noo taabo كنيو كلمة دا معلمها والمقلي واحد كستو هرت لبونبونيو هرت كلمة دا نقول صحافة دا كمقلي مركو هرس قرما المقاشي كوريسي وحنا مقلي كلمة دا وحنا مقلي هرت كلمة دا كلمة شرتو دا وقت كان إمك هذا سواقع تمركي Soomaaliya qaxo ka dhacay waqtiyada dhowr iyo 20 sanadood maraya imka dawladii Soomaaliya ay burburtay waqtiga waxa bilaamay qaxoontiyo waa ogtihiin halkan aynu joogno Europe meel kasta dadku waxay isku dhiibayeen aad ogtiin waxaan nahay beelo saas laga tira badan yahay ay lahaayeen saxaafad arintaana waa dad lagu najaxay dad badan baa ku najaxay waxay u bedeleen intii dambe ee imka ay saxaafadu xoog yeelatay saxaafadu waa ogtahay way inagu cusubta inta xoog yeelatay waxa loo bedelay beelaha la hayb sooco waa kelmadii oo la sii ta'wiiliyo si kala loo sii dhigay marka kelmadu ma aha kelmad 4 sano iyo 5 sano bilaabantay waa kelmad imika 30 jir anigu aan u arkayo xusbigan iyo madaxweynaha inuu bilaabin laakiin kelmad jirtay laakiin saxaafada ayaa marba dhinac u dhagaraysa kelmadda
haddii si kale loo eego ma la odhan karaa xisbiga kulmiye beesha gabooye waa lagaga adkaaday oo iyadoo loo adeegsanaya magacaas ayaa lagala baxay aad iyo aad baan uga xumahay dadkaas imika magacaa leh ama haybtaa leh waa dad aan aad iyo aad u tixgeliyo waa dad mudan in tixgelintooda iyo saamigooda aan cidba lagu xidhin xitaa waxaan aaminsanahay anigu inaan cod lagu xidhin dadka in maamuus ahaan lagu siiyo waxay xaq u leeyihiin wasiir bay xaq u leeyihiin wasiir ku-xigeen bay xaq u leeyihiin xildhibaan wax kasta in la siiyo marka runtii sida muuqata madaxweynuhu degmaan maqal wasiirkaasuu siiyey marka dadka aad iyo aad baan anigu ugu doodayaa haddii ilaahay ka dhigo imika laakiin qaabkan imika ay u dhigayeen markaad soo qaato barkhad oo kale dee barkhad waan ka xumahay inuu madaxweynahaba isagu la hadlo oo yidhaahdo hadduu xitaa magacan ka cabanayo iyo haddii uu wax kala doonayo isagoo dee la taliya ah inuu kala taliyo madaxweynaha xayndaabka madaxtooyadaba galay muddo 4 sano imika ku jiray inuu isagu hordhigo wixii uu ku diidaa dee waa meeshiisa war uma hayno waxaan jeclaa inuu isagu hordhigo hadduu doono hankiisu inuu wasiir doonto wasiir ku-xigeen doonto baan jeclaa oo kasii kordhiyo halkan la taliyaha marka waxaad moodaa kolley imika inay waxoogaa waqti geliyeen axsaabta kale kolley waana sumadda dimuqraadiyadda iska caynkaas waan gartay ugu dambeyntii waxaan rabnaa bal inagoo tixaaga gabayga kuwa cusub bal aad wax nooga sheegi doontid guud ahaan 3 xisbi ee dalka imika u ordayay kursiga keebad leedahay maanta uu ugu cadaadiyay wallaahi runtii waxaan u arkaa dee xusbiyada qaarna waa qaar aynu tijaabinay oo taladii ama gacanta ku haya aynu soo tijaabinay qaarna waa qaar aynaan weli biyo dhiijinno waxba u dhiibin marka runtii dee xusbiga aan waxba loo dhiibin ma qiimeyn karo dee inuu dadaalo keli waxaan farayaa aan halkan u marinayaa inay dadka u sheegaan kulmiya waxaan iyo waxaan iyo waxaan uu qabtaye annagu waxaa iyo waxaana way ku feelgaroobeen ama way qaban waayeen waxaanu bedelaynaa qorshaha noocaasa ayaan jeclahay inay faraan oo ay la soo baxaan bal waxay iyaguna kaga duwanaanayaan laakiin hadday noqoto iga soo degun xaaladdu maansaxdaraawi baa waxaa ku jirtay waxaan la isku dilayaa in xumaa la doorshiyo xil daryeelistiis iyo daduhiilin maahee genyadan dakaanka anna aan dul buuxsho daadka aan ku dhaafo dalacsada markayga iga soo deg weeyaan hadday xaalku dalacsigaa yahay iyo iga baydh dee waxba kordhimayna laakiin iyagu inay buug u sheegaan dadka waxaasaanu bedelaynaa waan ka rabaa okay qolada kale ee imika ku fadhida dee waynu aragnay waxaa la nin arigiisa bahal ku dhex jiro orod darane mooyaane ayaan darane mooyaane orod darane laguma idhaaho waxaan uga jeedaa wixii ay qabteen ama dee taariikhduunbaa sheegi dadaalkooduna malaa halkaasuu dhigay waayo maadaama ay wakhtigu gebageba yahay oo bili 3 bilood waxaan gaadhin ay ka hadhay doorashadii dee imika itaalkoodii aragnay laakiin wixii ay marka dambe inoo sheegay iyagu way noo shiraban yihiin imika calaa kulli xaal ninka kale la dee war uma hayno wuxuu qaban doono laakiin waxaan jeclay inay sheegaan message-kooda waxaad bal nagu soo gabagabaysaa waraysigeennan kooban tixdaadii magafe iyo cusbayd bal hadda iyo ujeedadeedii bal hadda nagu soo gabagabay runtii tixdani waxay ka dambaysay tixdaa hore horta goolkayga suugaan ahaaneed iminka waxaan xooga saaray in aan arrintaa wacyigelin itaalkayga ama dadaalkayga aan wacyigelin ahaan ka dhigo wixii ilaahay iga garansiiyo hadday suugaan maansaca tahay iyo hadday suugaan tahay gabayo markaa goolkayga ayaa saa imika u badan waxaana jeclay in dad badan igala qayb qaato keligii inaan wadama jecli dad badan baan u baahanay inay ka qayb qaataan hawsha ama suugaanyahana aadan runtii gabaygan wuxuu ka dambeeyey gabaygaa hore ee sadaal guracan waxaa la yahaa magafe waa problemka imika aan soo arkay sacdaalka dambe magafa la yahaa waa ninkan uun magafe waa kelmad inagu cusub waa ninkan caruurta marka u dambaysa suudaan iyo liibiya dhexdooda ku qabanaya inuu dee qof qura yahay iyo inuu dad badan yahayna ma kala garanaya karabaan waa magafe imika waa sheeko laga dharagsan yahay taasaan ticda ugu magacdaray waxaan kaloo arkay dee dhibaatadu gaar uunbay soomaali ahaan inoo sii tahay in ay afrika oo dhan aad moodo in laga geediyahay marka gabaygan wuu ka horeeyaa gabayada kale oo afrika ayaaban ku halqabsaday calaa kulli xaal idinku badin maayo isagaa ismacnayn doona manaan duubin waan ka xumahay dadku qoraalka aad uguma degdegaan laakiin inaan soo duubaa laga yaaba dhaqso marka gabaygan waxaa la yahaa magafe wuxuu ka bilaabmaa afrikaankan guday qaarad gadan gabanna loo haynin dadkan guuray gaajadan lingaxan geli agoomeedkan
dal goblomay gurboodkii badaha lagu guruur beeday guryo baahay caruurtii la guray saxara gaagaabshay raaliga noqda ummad gurantay geed joogihii gabay xilkiisiiba dhalin galab carrowl iyo haldoor wada garmaameeyey gaaridii haweenoo iyadu galab carrowtiina geel jira tahriiboo ka badan goonka midhaheenna bismillaah gebagabada waayaha jiriyo giriirif mooryaanka ciiddeenna gooheeda iyo gibil madoobaadka dhaqankeenna guuriyo hiddaha goobtii laga saaray gurac iyo ismaandhaafka iyo golo la caadaystay gundhig li'ida soomaalidii goobka kiciwaaga garowshinyaliidiyo tashiga gamashiluudkiisa giblo sacabka goob aan ciyaar cidi garaacaynin gacal iyo xigaal kala shiriyo geeda sarawaabka goonyaha la qaatiyo warmaha goombiyad la qaatiyo warmaha galowga dhiileeyay magafaha gabraartay ee isagu giniyadii laastay giiryaamo soo muuqatiyo gebiyo soo ciiray isku nayn la'aanta iyo mindidan lala gariiraayo gobannimo dhammaato malaa guuriya xididkeede goha lama degiyo sow arladii lagama soo guurin gerigiyo ugaadheenisow goodirma hayaamin garwaanlihii iyo deeradii iyaga sow goosan ma habaabin bismillaah gayigaba nimcoolaydii sow lagama soo goofin geel iyo fardi sow iyaga gaala ma xaraysan waad aragtay meel walba geeleyni baa ku xaraysan halkan aynu joogno oo suubaa layahaa waa la daawadaa gayigaba nimcoolaydii sow lagama soo goofin geeliyo fardiisow hadeer gaala ma xaraysan galowgiyo shimbiriheenni sow carabi may goobin carab baa eryanaysa shimbirihii juglaydii macal hooyadana waa la rarayaa guuguulihii iyo goodirkii sow ma garan waayin gorayada dhallaankeedii sow gaajo ma idlaysan markii ay gateen ee rasaas lagu galaydh xooray giddi habar dugaag iyo libaaxso iskama guurin sow nimanku gaankiiyo cariga gumaca may keenin ugaadheennii ama nimcoolaydii ama waxaweye duurjoogtii markii qorigan laynoo keenay cid baa inoo keentay qorigan ayaa waxaweye waa la toogtay way ka hayaameen wixii libaax la odhan jiray bahal wax cuni jiray ama ugaadho ilaahay baa isku nooleeyey oo arlada dhigay nimcadii arlada ahayd way hayaameen kuwaasi way guureen Kenya inoogu dhow meel libaax joogo sidaan anigu sheekada ku qaatay marka xoogaa qiiradan waxay tustay ugaadhi iyo dhibaatadii inay sii badatay marka gaarna ee bahay wuxuu inaga guno inoo siiyey wanka gabar madow iyo orgiga giira subageede ninka idin gediyey ee qurbaha idinku guubaabshay garan waana soo dhoofiyey iyo siir la garan waayo afartaa gorfeeyey haddaan gobooda raacsiiyo oo aan gilgilo xaajadan gaar u ladi waayey garowshiinya maan helin naftii gocosho mooyaane iga raalli ahaada gabayga oo cusub yahay guusha iyo ijaabada allow gabayga ii raacay gundhigbay murtii leedahay waxaan ku soo gooyey dhirtu waa gabood la hadhsadiyo guri yagleeshiiye gasina waxay u tahay xoolihii gurada weynaaye galoolka iyo gobkii soo iyaga gudinimay leefin gabalkii dhaca waa midaan soo gadaal noqone gashi waxa la bixiyaa markuu kugu garoobaaye waxaad geesi doontaa markaad diriir gelaysaaye godob waxaad ilowdaa markaad samir u guurtaa ummad yahay ka gees gibil madoobaatay ummad yahay samaha garab martay xuma u sii guurtay ummad yahay galbeedaysanee galelabrooraysa ummad yahay iswada goysay gacaladii xoortay u guntada u guureeya oo nabadda gaashaama u gableeya u gabada nin lagu guurayo idingar waasiine u gabada nin lagu guuraya idingar waasiine waxaa jira imika qaar Soomaalidii kan mid ah oo iyagii la wataba oo wadankii ku nacsiinaya waa lagu shaqaysanaya baan oran karaa marka
marka ay isgarabaysatay guuleed marka aad isgarabaystaa guuleed dhabataaye u gableeya geeraarshaho gacan togaaleeya gundhigeeda tala waa inay guurti marisaaye haddaynaan u soo gelin sharciga guule amarkiisa ama aan gargaarkeen noqon diinta garab siiya garownshiya waa ka haddaa garan lahaydeen okay anigana gubtaanyada xilliga gelinba aan joogo cabdilaahi ganayo haddaan gabay ku faalayno galbabooti maran baan arkaya geliya suugaanta guubaaba raacsho dadka gaar wax ugu sheega culimada gabowday talada goob isugu keena garcadiyo waxgaradkow tashiga ugu garaadeeya anna waxaan gunaanadii tixdan gaar u soo dhigaye guulow allahayow jannada igu gelimayso waa mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa abwaan haybe oo inoo tirinayay tixdii magafe iyo tixa ka horeeyay iyo sidoo kale waxaan ka wareysanay siyaasadda Soomaaliland xisbiyada doorashada ay meesha kala marayaan runtii waxyaabo badan ayaan ugu laabanay abwaanka oo noo haya wareysi baanu maanta la yeelnay wareysigu dheeryahay kan waa qaybtan baan ku dhammaynaynaa laakiin waxaanu rabnaa inaanu bilowno hadana wareysiga qaybtiisii labaad wax yar kadib markaanu ka soo laabano break waana mahadsantiin dhammaantiinba waxaa idiin daadihinaya wareysigana idiin qaadiyay wariye Siciid Jamaal oo aad uga barataan jeer barnaamijyo aad u xiiso badan waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi diibadeed tacabkii dadkoodiyo toodiiga lumiyo dhalinyahay tahriibtiyo ku taamaya diibadeed tacabkii dadkoodiyo toodiiga